bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kusoo dhawaada barnaamijka top 10ka. barnaamijka top 10ka maanta waxaan kusoo qaadan doonaa 10 wadan ee ugu faqiirsan dunida sanadkan 2018. waxaana ku qiimeyn doonaa waxa loo yaqaano GDP per capita oo loola jeedo dhaqaalaha wadanka soo gala sanadkiiba oo loo qaybay bulshada wadanka ku nool qayb ahaan qof walba inta ku soo aadaysa. aan ku bilowno wadanka koowaad waa Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, Central African Republic. GDP-ga wadanka waa $636. Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa ka mid ah wadamada ku yaala qaaradda Afrika, waxa ayna noqotay wadanka ugu faqiirsan dunida sanadkan 2018, waxayna kaalinta koowaad ka gashay 10 wadan ee ugu faqiirsan caalamka. Afrikada Dhexe ayaa la daalaa-dhicisay 3 sano ee ugu dambeysay rabshado siyaasadeedsan. sidoo kale dowladda Afrikada Dhexe ayaa awoodin inay maareyso sicir barar ka jira wadankeeda, kaasoo saameynta ugu weyn ku yeeshay inay noqoto dowladda ugu faqiirsan caalamka. 2. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, Democratic Republic of Congo. GDP-geedu waa $753. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ayaa ku jirta kaalinta labaad ee wadamada ugu faqiirsan caalamka, wuxuuna wadankani ka mid yahay wadamada ku yaala qaaradda Afrika oo ay ka jiraan qalalaasaha siyaasadeed, mana helin xasilooni tan iyo markii ay xurnimadeeda qaadatay. waxaase xusid mudan in wadankani ay ka buuxaan macdan fara badan, balse aysan awoodin dadka wadankaasi inay la soo baxaan dagaalo sokeeya oo wadanka ka jira awgeed. 3. Wadanka Malawi. GDP-ga wadanka Malawi waa $819. Malawi ayaa ku jirta kaalinta saddexaad ee wadamada ugu faqiirsan caalamka, waxa uuna ka mid yahay wadanka Malawi wadamada ku yaala qaaradda Afrika. dhaqaalaha wadanka ayaa hoos u dhacay, waxaana sababaya sida ay sheegeen khubaro dhaqaalayahano wadankaasi ka soo jeeda musuqmaasuq, cadaalad darro ka jirta wadankaasi. 4. Wadanka Liberia. GDP-ga wadanka Liberia waa $934. wadanka Liberia ayaa ku jira kaalinta afraad ee wadamada ugu faqiirsan caalamka, waxa uuna ka mid yahay wadamada ku yaala qaaradda Afrika. wadankani ayaa isbeddel ka sameeyey waxbarashada iyo horumarinta xirfadaha shaqo si loo kobciyo dhaqaalaha wadanka. hase yeeshee 5 sano ee ugu dambeysay kobaca dhaqaalaha wadanka ayaa ahaa 5%, taasoo ka dhigan in kobaca dhaqaalaha wadanka uu yahay mid aad u liito. 5. Wadanka Burundi. GDP-ga wadanka Burundi waa $951. Burundi ayaa ku jirta kaalinta 5aad ee wadamada ugu faqiirsan caalamka. Burundi ayaa waxa ay ka mid tahay wadamada ku yaala qaaradda Afrika. inta badan dhaqaalaha wadanka Burundi waxa uu ku tiirsan yahay wax soo saarka beeraha. 80% dadka wadanka waxa ay ka shaqeeyaan beeraha. hase yeeshee xasilooni darro siyaasadeed oo ka jirta wadankaasi iyo musuqmaasuq ayaa saameynta weyn ku leh wax soo saarka iyo kobaca dhaqaale xumida ka jira wadanka Burundi. 6. Wadanka Niger. GDP-ga wadanka Niger waa $1069. Niger ayaa ku jirta kaalinta 6aad ee wadamada ugu faqiirsan dunida, waxa uuna ka mid yahay wadankani wadamada ku yaala qaaradda Afrika, waxa uuna tusaale fiican u noqonayaa wadamada macdanta faraha badan ay ku jirto balse ku nool xaaladda faqriga ah, isla markaana kobaca dhaqaalahooda uu aadka u liito. maamul xumo, musuqmaasuq iyo cadaalad darro ka jirta wadankan ayaa loo sababeynayaa hoos u dhaca dhaqaalaha ee wadanka Niger. 7. Wadanka Mozambique. GDP-ga wadanka Mozambique waa $1208. Mozambique ayaa ku jirta kaalinta 7aad ee wadamada ugu faqiirsan dunida, waxaana ka mid ah ama waxa ay ka mid tahay wadamada ku yaala qaaradda Afrika. wadankani ayaa lagu leeyahay deymo fara badan, mana awoodo inay bixiyaan xilligan. hase yeeshee dhaqaalayahano ka soo jeeda wadankani ayaa sheegay in sanadaha soo socdo dhaqaalaha wadankani uu kobcayo. 8. Wadanka Eritrea. GDP-ga wadanka Eritrea waa $1210. Eritrea ayaa ku jirta kaalinta 8aad ee wadamada ugu faqiirsan dunida, waxa ayna ka mid tahay wadamada ku yaala qaaradda Afrika.
ee wajahaya xaaladaha sababayo dhaqaale xumida sida maamul xumo, musuqmaasuq iyo cadaalad darro, waxaana waddankani xilligani ku jira xaalad dhaqaale xumo oo aad u daran. 9. Waddanka Guinea. GDP-ga waddanka Guinea waa $1,388. Waddanka Guinea ayaa ku jira kaalinta 9aad ee waddamada ugu faqiirsan dunida, waxaana ka mid yahay waddamada ku yaala qaaradda Afrika. Tan iyo markii xornimadiisii uu qaatay, waddankani waxa uu sameeyey koboc dhaqaale oo aad u yar. Dhaqaalaha waddankan oo aad u xun. Guinea waxaa ka buuxa macdan fara badan sida iron, diamond iyo dahab, mana awoodaan dadka waddankani inay la soo baxaan dagaallo sokeeye oo waddanka ka jira. 10. Waddanka Madagascar. GDP-ga waddanka Madagascar waa $477. Waddanka Madagascar ayaa ah waddanka 10aad ee waddamada ugu faqiirsan caalamka. Xasilooni darro siyaasadeed ayaa saameyn xun ku yeelatay wax soo saarka iyo koboca dhaqaalaha waddankani. 10kii waddan ee ugu faqiirsanaa caalamka sanadkan 2018 waa inaga intaa. Ha moogaani inaad daawato 10ka waddan ee ugu qanisan caalamka sanadkan.